Soomaaliya maanta waxay ahayd maalin taariikhi ah madaxweynaha cusub Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xilka kala wareegay madaxweynaha haatan xilka ka degay Xasan Sheekh Maxamuud munaasabada xil wareejintu waxay ka dhaxday xarunta madaxtooyada oo haatan dhexdeeda ka soo hadlayo waxa lagu bilaabay kulan dhex maray labada madaxweyne oo ay ka wada hadleen arrimaha la xiriira shaqooyinka yaalay heshiisyada waxyaabaha la xiriira mashaariicda ay waday dawladda haatan banaysay meesha iyo waliba sidii u sii ambaqaad lahayd xogaha dukumeentiyada ah markay la wareegeen kadib waxa wariyaasha la wadaagay sawir wada jira labada madaxweynaha haatan baneynaya talada iyo madaxweynaha cusub oo isla fadhiya kadibna si wada jira waxay u booqdeen oo waxyaabaha lagu wareejiyay madaxweynaha cusub kamida hantida qaranka Soomaaliyeed waxyaabaha lagu helay magaca Soomaaliya oo madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud uu ku wareejiyay madaxweynaha cusub Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa kamida seefta dahabka ee caanka ka ah Soomaaliya waxa kamida waxyaabo kale oo ka kooban macdan diamond dahab waxyaabo kale oo aad u qurux badan oo hore loo siiyay madaxdii ka horeysay Farmaajo oo maanta isaga lagu wareejiyay waa hantida qaranka Soomaaliyeed oo lagu soo helay magaca Soomaaliya intaasi kadib waxa labada madaxweyne ay u soo baxeen banaanka xarunta madaxtooyada halkaasi oo ay ridda hore kula hadleen si wada jira wariyaasha Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay maanta inuu xilka ku wareejiyo madaxweynaha isaga bedelaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maalmihii weynaa oo taariikhiga ahaa ee Soomaaliya waayahan dambaba soo maray kamid tahay maanta waxaa xafiiskii madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya la wareegay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xil wareejintiina steps-keedii ka mid tahay waxaan rabaa marka inaan dadka Soomaaliyeed guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada hay'adaha kala duwan dawladda dhammaan inaan ugu mahad celiyo 4 sano la soo dhaafay sidii wanaagsanayd ee dalkan uga soo shaqeeyeen waxqabadka weyn ee maanta aan ku naaloonayna ee sababay waxa maanta dhacay eventiga maanta dhacay inuu dhaco sabab u ahaa dadkii ka soo shaqeeyo dhan ama dawladda dhexe ha joogaan ama maamul goboleedyada iyo dalka qaybihiisa kala duwan ha joogaan aad iyo aad ayaan rabaa inaan ugu mahad celiyo oo aan iraado shaqada aad soo qabateen oo wanaagsanayd ayaa sababtay maanta meeshan wanaagsan inaan soo gaaro marka taas dadka Soomaaliyeed iyo hay'adaha dawladda ee kala duwan dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada bale ma haddaasaan u jeedina dadka Soomaaliyeed guud ahaan hawshan waa hawl laga soo wada qayb qaatay waa ku mahadsan yihiin sidoo kale waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iideysto mahad celiyo beesha caalamka ee ayadana 4 sano aan soo joognay xafiiskayga iyo dawladda Soomaaliya madaxweynaha waa intaba si wanaagsan ula soo shaqeeyay soo saaciday soo garab taagnaay muxuu ahaay maanta noo suurto geliyay inaan meesha soo gaarno ugu kaalmay ayaguna waxaan rabaa inaan mahad celiyo si khaas ah waxaan rabaa inaan ugu mahad celiyo dalalka ciidamada AMISOM u soo diray Soomaaliya ee wiilashooda iyo gabdhahooda dhiigooda Soomaaliya ku baxay qaar ku dhinteen qaar ku curyaameen caruur badan ku agoontooday oo dalalkoodii maanta jooga walina qaar u taagan yihiin in ay Soomaaliya ka sii saacidaan sidii ay lugeed ugu istaagi lahayd waxaan leeyahay ayaguna aad iyo aad ay u mahadsan yihiin madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan leeyahay madaxweyne soo dhawaaw oo insha Allah ku fududeeyo khayr badan iyo guul aan ku rajaynayo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo markiisa hadalka qaatay waxa uu sheegay inuu aad uga mahad celinayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xil wareejinta iyo waliba shaqadii uu soo qabtay waxa uu amaanay sida uu soo dhaweeyay sida habsamida leh tiimkiisa shaqaalihiisa ee ula shaqeeyeen tiimkayga transitionka iyo sida habsamida leh ee xil wareejinta u dhacday waa maalin taariikhi ah oo ummadda Soomaaliyeed iyo caalamka meel kasta ay arkayaan sida aan isugu wareejinayno nidaamka iyo dawladnimada runtii waa maalin taariikhi ah waxaan rabaa inaan u mahad celiyo shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan ugu bishaareynayaa dawladdaani waa dawlad shacab idinka iska leh idinkaan dib idinku soo celinaynaa waxaan idinka codsanaynaa inaad la shaqeysaan dawladdan oo aad gacan siisaan idinka iska leh waxaan idinka rabaa inaad nagala shaqeysaan hadday noqoto canshuur aruurinta iyo dhaqaalaha hadday noqoto nabadgelyada inaa ilaashataan yaa la doonayaa dawladdan ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu naga dulqaado colaadda iyo abaarahana haysta ilaahayna aan u noqonno aan iswada cafinno kulligeen dad waalaan wada nahay kulligeen waxbaa naga halaabay
laakiin aan u qaadanna hadda inaan hurdadii ka kacnay waan isweydiinno xaggee joogtaan waqti fiican yaa soo socda oo wada shaqaynaynaa waxaan rabaa inaan u mahadceliyo beesha caalamka iyagana runtii gacan weyn ka geystay inay dowladdan meesha ay joogtay ay soo gaarto amisom iyagu naftigooda hawl badan bay meeshaan ka qabteen waxay ka difaaceen maxaan ku rahaa dhibaatooyinka iyo dagaalada joogtada ah garab iyo ku siiyeen dowladda inay sidaas noqoto ay shaqayso waa ku mahadsan yihiin kulli maxaan ku rahdaa dowladaha ciidamada halkan ay joogaan waan wada shaqayn doonnaa hadduu ilaahay yiraahdo ilaa aan ciidamadeena dhisanno kadibna iyagoo de waalaheenna oo taariikh waddankan geystay ama taariikh ku leh inay guryahooda ku noqdaan hadduu ilaahay yiraahdo markay labada mas'uul la hadleen warbaahinta kadib waxa ay u soo gudbeen barxadda xarunta madaxtooyada halkan oo ay salaan sagootina loogu sameeyay madaxweynaha talada baneeyay xasan sheekh maxamuud sidoo kalena salaan soo dhaweyn ayay ciidamadu siiyeen madaxweynaha cusub maxamed cabdullaahi farmaajo iska canqaad iyo kaftan iyo salaan ay dadweynaha ay la qosleen kadib waxa laga sagootiyay xarunta madaxtooyada madaxweynihii hore ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo 4 sano halkan ku soo shaqaynayay waxa xusid mudan in kulanka ay goobjoog ahaayeen gudoonka labada aqal ee Soomaaliya iyo xubno ka tirsan labada gole ee dawladda Soomaaliya maanta oo kale waxay u ahayd maalin si weyn loo hadalhayay waa jaamac Dabaraani oo ka soo hadlaya Somali Cable TV Muqdisho.